Asalaamu calaykum dhammaan daawadayaasha ku xiran YouTube kanaalka Mano Production. Waxaan muuqaalka kugu soo gudbinayaa sidee ayaan ku dooran karaa kulliyad fiican ama kulliyad ku habboon. Soomaali badna ama adduunka dhan ardayda badna waxaa lagu qasbaa markay dugsiga sare dhameeyaan inay kulliyad aysan rabin inay doortaan oo macnaha ay tahay inaysan jeclayn kulliyadaas uu baranayo. Taasna waxaa ka dhalanayso inuu ku fashilmo aadow jaamacadda inuu dhameysan waayo ardayga ama inuu doorto kulliyad uusan aqoon u lahayn ama uu ku fiicnayn macnaheeda. Ma ahan kulliyadaas kuma habboonin laakiin wax walba waa macquul. Haddii aadan niyad u haynin ayaa laga yaabaa inaad ku fashilanto. Sidaas darteed waxaan muuqaalkan kugu soo gudbinayaa ama halkaan kugu soo bandhigayaa talaabooyin ku saabsan sida ugu fiican lagu fikiro doorashada jaamacadda iyo kulliyadaba. Dabcan qof walba xaaladiisa waa mid u gaar ah oo kulliyadda qaab nooc ayuu ku dooran karaa, laakiin waxaan isku dayayaa inaan ku soo bandhigo tilmaamo guud oo dadku dhan ay wada taabanayaan. kow ka taxadir waxyaabaha muuqda. Noloshaada ma burburayso haddii aadan gelin jaamacad ama shahaado aadan qaadanin. Xaqiiqdii laakiin waxaan u maleynayaa in mararka qaarkood dadweynaha ama nolosha ama deegaankaaga ay ku saameynayso ama ay wax kugu qasbayaan inaad ka fikirto waxa muhiim u ah ugu yaraan marka laga eego waxbarashadaada. Ka taxadir waxyaabaha kugu hareeraysan. Mid ka mid ah guuleystayaasha macnaha dadka ka gaaray guul la taaban karo nolosha ayaa waxa uu dhahay haddii aysan jiri lahayn indho ama dad nagu hareeraysan ay indho la'aan ahaan lahaayeen ma aanan soo gadanayn dhar qurux badan, ma aanan xiran lahayn dhar qurux badan, ma aanan dhigan lahayn alaab guriga alaab fiican camal. oo macnaha wuxuu ka wadaa muraayada keliya nagu hareeraysan inay tahay dadka indhahooda ama dadka deegaanka aad ku nooshahay adiga saameyn weyn ayuu kugu haysaa, sababtoo ah deegaanka waxa uu bedelaa habka nolosha. taas oo sabab ku noqon karta markaad dhammayso dugsi sare iyo inaad joojiso waxbarashadaada oo aad la qabsato dhalinyarada iyo heerka nolosha ee deegaankaas lagu dhaqmo. baaritaan ku samee kulliyadda. Kasoo qaad maanta waxaad dhamaysay dugsi sare ama iskuulka ayaa dhamaysay ama waxaad tahay hadda dugsi sare, waxaad aaday jaamacad waana iska diiwaangelisay. kulliyad ayaa iska dooratay oo aadan aqoon saas u lahayn, kama aadan fikirin marka qiyaas maxaa dhici karo. waxaa dhici karo kulliyadda inaad dhameysan weysay ama jaamacadda dhameysan weysay ama semesterkii koowaadba inaad dhameysan weysay oo aad la kulanto caqabado kala duwan, sababtoo ah ma aadan ku fikirin kulliyadaas oo baaritaanku ma aadan sameynin oo xaqiiqooyinka macnaha kulliyadaas taabanayso markaad dhameyso jaamacadda ama waxaad la kulmayso ma aadan ka fikirin isla markiiba oo waa iska tagtay. taas dib weyn ayay ku leedahay. waxaa jira marka kulliyado oo jaamacadaha markaad isku qoraysid ay fiirinayaan maadooyinka quseeya buundooyinka ka wadato. tusaale ahaan hadda kulliyadda caafimaad haddii aad baranayso waxaa laga maarmaanaya inaad haysato maadada biology la dhaho inaad ka wadato buunto saro. ama kasoo qaad kulliyadda IT-ga waxaad rabtaa inaad iska qorto, waxaa muhiim inaad buunto fiican ka wadato maadada xisaabta, sababtoo ah xisaab ayay khusaysaa. macnaha kama wado kulliyadaas uma qalantid buundooyinka ayaa hoosey, ma ahan wax kasta waa macquul. haddii aad buundooyin kulliyadda khusay xitaa buunto hoos ka wadatid waxaa laga yaabaa inaad u noqoto ardayga ugu horeeya. waa haddii aad adigu niyad u haysid kulliyadaas barashadeeda. intaadan tagin jaamacad ka hor oo aadan kulliyadda dooranin waxaa fiican inaad ku sameyso baaritaan oo aad raadiso fursadaha shaqooyin markii kulliyadda aad dhameysid iyo waxa aad ku dooranaysidba inaad raadisid ayaa fiican. Gordon waxaan kuu soo gudbinayaa kanaalka Mano Production
kulliyadaha ugu sare caalamka ee la barto hadda iyo fursadooyinkooda. Dooro kulliyadda aad jeceshahay. Horta waxaa muhiim ah inaad doorato kulliyadda aad jeceshahay, sababtoo ah hadhow wax aad xiisayso ayaa hadhow guul ka gaari kartaa. Laakiin badnaa Soomaali ahaan markii la joogo waalidka ayaa ardayda badnaa ku qasba inay kulliyadda doortaan. Waxay dhahayaan kulliyadda Hiblaayo dooro, laakiin ardayga kuma qanacsana kulliyaddaas oo ma xiiseeyo, sababtoo ah kulliyaddaas hadhowdii horumarka ma gaarayo oo ma jeclaanayo oo buundooyinkiisa intay hooseeyaan ayaa laga yaabaa. Marka waxaa fiican inaad u tagto waalidka u sheegto oo aad dhahdo aniga kulliyaddan ma xiiseeyo, ma jecli inaan barto kulliyadda Hiblaayo ayaan rabaa. Waxaan xasuustaa hadda kahor wiil ayaa wuxuu uu galay jaamacadaha dalka ku yaala ayuu galay. Wiilka marka wuxuu uu doortay kulliyadda IT. Muddo 1 sano ayuu baranayay oo 1 sano ka hor ayay ahayd. Asoo 1 sano baranayay wuxuu dhahay markii la fiiriyo buundooyinkiisa macnaha uu semesteradii soo galay 3 semester camal ayay ahayd waa u hooseeyay maadooyin kasta. Marka waxaa lagala tagay waa la weydiiyey adiga maxaa ku daraysaa camal se wax ka yihiin. Wuxuu dhahay horta aniga kulliyaddan aniga waa lii dooray, aniga ma dooranin, mana jeclin kulliyaddan. Marka waxaa la u tagay waalidka u sheegay runta saana wax u jiraan. Waa u tagay kabacdi hadda wuu iska bedelay kullayaddii. Haddana waxa uu yahay ardayda ugu sareeya galaaska, macnaha kulliyadda uu xiiseeyo ayuu doortay, sababtoo ah aad ayuu fiican tahay inaad doorato kulliyadda aad jeceshahay ama kulliyadda kugu habboon, sababtoo ah wax aad xiisayso ayaad horumar ka gaari kartaa. Marka dooro markasta kulliyad kugu habboon ama aad jeceshahay ama aad xiisayso. Ka fikir xirfadda mustaqbalka. Si badan macnaha ku taabanaysaa. Intaadan jaamacadda gelin ka hor ka fikir mustaqbalkaaga. Maxaa rabtaa inaad noqoto? Ma dhaqtar rabtaa inaad noqoto? Ma engineer rabtaa? Ma duuliye rabtaa? Ma computer system noqonaysaa? Ma waxaad noqonaysaa pharmacist? Ma logistic ayay noqonaysaa? Ka fikir intaadan hadda aan dooranin kulliyad aadan galin xirfadaada mustaqbalka, sababtoo ah hadhow waxaa ka taqasusaysid waxay khusaysaa kulliyad aad hadda baranaysid. Waxaad jeceshahay oo xiisayso ayay si aad u taabanaysaa. Hadda ka fikir waxaad noqon kartaa ama aad rabtid inaad noqotid mustaqbalka ogow kulliyadda aad ku taqasusaysid, sababtoo ah hadda tusaale ahaan haddaad doorato kulliyad engineer waxaa rabtaa dhaqtar noqdo ayaa dhahay engineer ayaa doortaa iska gashi. Taas waxaa ka dhalinaysa inaad waxbarashada sii wadweysid ama mustaqbalkiiba mid fashilmin aad noqotid. Marka kulliyadda aad doorato hadda ayaa waxay tahay mustaqbalka mid aad ku hawlgali lahayd, ayaa waxay tahay mustaqbalka mid aad ku dagaaltami lahayd oo aad ku taqasusi lahayd. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Waxaan filayaa inuu muuqaalkan kaa caawiyay sidaad ku dooran lahayd kulliyadda kugu habboon. Haddii aad ku cusub tahay YouTube kanaalka Mano Production, fadlan subscribe isku day inaad asxaabtaada hal qof ka mid ah aad u share gareyso.